بسم الله. عشر كان waxaan ku baranaynaa sign in option wax la yiraahdo sign in options wax la yiraahdo ayaan ku baranaynaa. sign in option-ka waxa waaye waa qaab aad computer-kaaga ku galayso oo login aad ugu sameynayso. marka ilaa waa 6 qaybood ayaa maaragtay ay Microsoft ay u qaybiyeen in aad ku gali kartid oo password-kaaga aad ku adkeysi kartid. marka haddii aan isla fiirino mid ayaan u dul tegi doonaa aan u fiiri doonaa insha Allah. marka haddii aan hadda isla fiirino kale sign in option-ka waxaad tegaysaa start, waxaad tegaysaa settings, kadib waxaad tegaysaa accounts meeshay ku qoran tahay, kadib waxaad tegaysaa waa kana meeshan furaha uu ku qoran yahay sign in options meeshay ku qoran tahay ayaa click siinaysaa. waa kana 6 qaybood aan idin sheegay waa kana waa Windows Hello Face and Windows Hello Fingerprint and Windows Hello Pin and security key and password and picture password. marka 6 qaybood ayaad maaragtay computer-kaaga aad ku gali kartaa haddaad u sameyso mid kamid ah. marka haddii aan midda koowaad option-ka koowaad aan fiirino kale Windows Hello Face-ka waxa waaye wajigaaga ayaad ku galaysaa. hadda shirkadaha kambaniyada qaar waaweyn oo kale iyo maaragtay meelaha security-ga aad maaragtay u isticmaala waxay isticmaalaan face-ka qofka face-kiisa indhihiisa ayay aad maaragtay ayaad ku aadinaysaa kadib markaas uu ku furmayaa markii aad rabto inaad login sameyso kale. hadda immigration-adu qaar oo kale oo maaragtay markaad airport ka degto kale airport-rada waaweyn oo kale sida hadda Heathrow oo kale uu leeyahay wajigaaga iyo passport-kaaga ayaad isku aadinaysaa kadib wajigaaga ayuu akhrinayaa maaragtay kadib maba is arkaysiinba marka waxa ku furmaya albaabkii markaas aad galaysaa. qof immigration-ka jooga dhan maba is arkaysiin oo passport-ka in ka qaado fiiriyo ma baahanaysid. macnaha waxay isticmaalaan face recognition wax la dhaho ayay isticmaalaan oo marka wajigaaga ayuu akhrinayaa. qaybtaas waa qaybta koowaad. qaybta labaadna waxa waaye Windows Hello Fingerprint waxay isticmaalaan suulkaaga ama farahaaga ayay maaragtay ayaad ku furaysaa laptop-ka. macnaha Windows 10 ayaa hadda Microsoft way ku soo dareen macnaha qaababkan ayay aad maaragtay hadda ugu soo dareen. marka Hello Fingerprint qof walba oo maaragtay bini'aadanka Ilaahay uu abuuray maaragtay wuxuu Ilaahay u sameeyay qof walba farihiisa inaysan faraha qofka kale aysan la mid ahayn oo asaga ay gaar u tahay. marka hadda waxay sameeyaan fingerka ayaa maaragtay fingerprint ayaa saaraysaa kadib markaas ayaa maaragtay laptop-kii uu ku furmaya. waa labada qayb hadda maaragtay kambaniyada waaweyn aad ay u isticmaalaan waa Hello Face-ka iyo maaragtay Windows Hello Fingerprint labadaas qayb aad u isticmaalaan. waxaa kaloo jira marka Windows Hello Pin ayaa gelinaysaa uu ku furmaya. marka kana waa security maaragtay key asna oo waxa waaye USB ayay shirkadaha USB ayaad gelinaysaa kadib ayuu ku furaa. USB special ah oo loogu talagalay maaragtay security key-ga oo pin la geliyay password la geliyay ayaa gelinaysaa kadib password ayuu ku weydiinayaa kadib saas ayaad ku galaysaa. waxaa kaloo jira password-ka caadiga ah kan oo normalka ah waa kii hore aan isticmaali jirnay. waxaa kaloo jira maaragtay picture maaragtay password ayaa jira. marka haddii hadda aan isla fiirino kale Windows Hello Pin-ka oo kale haddaan rabno inaan gelino kale waxaad leedahay add waxaad gelinaysaa marka wuxuu ku weydiinayaa password-ka computer-ka uu leeyahay ayuu ku weydiinayaa kadib wuxuu ku leeyahay set up a pin wuxuu ku leeyahay marka sameyso pin markaas aad xasuusan karto. marka wuxuu leeyahay pinka geli waxaan gelinayaa 1 2 3 4 ayaan gelinayaa. marka okay ayaan leeyahay wuxuu leeyahay waa macnaha wuxuu leeyahay pin meet and provide pin that meets and complexity wuxuu rabaa requirements in maaragtay 1 2 3 gu diiday macnaha qofka bini'aadanka inuu isticmaali karo camal ayuu maaragtay ayuu ogyahay. marka waan bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa wax kale ayaan ka dhigaynaa complex macnaha wuxuu rabaa in aad maaragtay xarafka u dambeeyo lambarka u dambeeyo iyo lambarka ugu horeeyo camal kan dhexe inaad isticmaasho. marka hadda waxaan isticmaalaynaa qaabkaas ayaan isticmaalaynaa. hadda wuu naga yeelayaa marka
marka waa kaas uu qaata hadda marka hore wuxuu nooga diidaa 1 2 3 ayuu diiday marka pinka hadda aan sameynay you can change the pin direct waa iska bedeli kartaa and you can remove waa iska bixi kartaa asaga dhan hadaa rabtid marka qaabkaas ayaa pinka loo sameystaa marka adoo password haystana pinka waa isticmaali kartaa hadhoodii pinku ku weydiinaya ama passwordka caadiga ayuu ku weydiinaya picture passwordka hadda isla fiirino kale wuxuu kula aan rabno inaan ku darno picture password oo kale add picture password wuxuu ku leeyahay marka passwordkaaga caadiga si aad u sameyso picture password wuxuu ku leeyahay sawir password sa u sameysato waa inaad gelisaa passwordkaaga caadiga ah marka hore passwordkana caadiga aan gelinaynaa kadib aan ku celina bal hadda uu naga yeelay waa kana marka meeshaas calaamadaas ayaad ku aadinaysaa ayaad xariiqaysaa ma jeedaa ayaad xariiqaysaa marka qaabkaas ayaa maaragtay ayadana maaragtay picture passwordka loo sameeyaa hadhoodii wuxuu ku weydiinayaa calaamadaas meesha xariiqay ayuu ku weydiinayaa marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa maaragtay sign in optionska waxaan hadda fahanay conceptiga ujeedka guud oo loogala dan leeyahay maaragtay qaabka loo isticmaalo sign in optionska waa 6 qaybood waa Windows Hello Face Windows Hello Fingerprinter iyo Windows Hello Pin iyo security key oo USB ga isticmaalayso iyo passwordka caadiga ah iyo picture passwordka 6daas qaybood ayuu maaragtay sign in optionka uu ka kooban yahay marka cashirkeena maanta waxaan ku baranay maaragtay maxaa la yiraahdaa sign in options aan sidee loo isticmaalaa marka waxaan u maleynayaa inaan maaragtay aad ka wada faa'iideysateen waxaan idinkaga tagayaa maaragtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh